kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada kanaalka Qalbi Soomaali TV kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayna fanaanada loo yaqaan Xamda Kuwiin oo soo bandhigtay inay fanka ku soo laabanaysa iyo in kale iyo sababta ay arinta ugu dhawaaqday sidoo kale daawadayaal waxaynu soo bandhigaynaa fanaanada Xamda Cabdikiinal waa Xamda Kuwiin oo soo bandhigtay ama samaysatay lamaana cusub oo dhinaca muuqaalka iyo quruxdaba ay iska shabahaan sidoo kalena daawadayaal ku soo dhawaada qisada fanaanadan oo kamid ahaan jirtay kooxda xidigaha geeska waxayna kamid ahaan jirtay fanaaniinta ugu taageerayaasha badan isla markaa fanaaniinta ah kuwa ugu caansan balse mar kaliya ka xuub siibtay isla markaana ka toobad keenay fanka dhinaca kale daawadayaal waxa isweydiin mudan maxaa isku soo beega xilliga aynu joogno in fanaanada Xamda Kuwiin ay ka hadasho lamaanaheeda nolosha iyo inay fanka dib ugu soo laabatay taasi waa mid maanta aynu ka jawaabi doono balse daawada intaynaan u gudbin mowduuceena haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato kanaalka Qalbi Soomaali TV fadlan si aad ula socoto barnaamijyada xiisaha badan iyo wararkii ugu dambeeyay nagu soo biir fadlan oo taaba calaamada subscribe-ka kadibna gambaleelka furo ku soo dhawaada barnaamijkan ugu horeyn daawadayaal fanaanada loo yaqaan Xamda Kuwiin oo ahayd fanaanad caan ah oo geyiga Soomaaliyeed oo dhan laga jecel yahay ayaa sanadku markuu ahaa 2018 waxay si kariisa u macasalaamisay kooxdii xidigaha geeska ee ay ka tirsanaa jirtay iyadoo ka xuub siibatay fanka gabi ahaantiisaba taasoo ay ku tilmaantay inay iyadu nafteeda u garan weyday inay ka sii haysto masraxa fanka ee Soomaaliyeed sidaas ay tahay daawadayaal fanaanadani waxay kaloo sheegtay inay si toos ah uga toobad keentay fanka waxayna si toos faraha uga qaaday muusiga iyo guud ahaan heesihii lagu yaqaanay fanaanadan balse dhinaca kalena daawada fanaanadan waxa ay bidhaamisay inay bilaabi doonto dhismaha nolol uga khayr badan midii ay ku jiri jirtay oo dabcan ay ula jeeday fanka balse daawadayaal dhinaca kalena Xamda Kuwiin oo ahaan jirtay fanaanad balse imikana kamid dadka ka baxay fanka waxa ay soo bandhigtay isla markaana shaacisay inaysan fanka ku soo laaban doonin iyadoo tiri ilaa xalay toole waxa ay soo gaadhaya su'aalo ku saabsan Xamday fanka miyaad ku soo noqotay waxaan leeyahay dadka su'aalaha ay soo weydiinayay iyo bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteeda maya kuma soo noqonayo ismana lihi taladana iguma jirto inaan ku soo noqdo laakiin waxa magaalada yaacaya waa been abuur iyo walibana waxba kama jiraan iyadoo uga jeeda wararka beenta laga sameeyay ugu dambeyntiina daawadayaal Xamda Kuwiin waxa heshay lamaanaheeda cusub wuxuuna meherkoodu ka dhacay magaalada Hargeysa isla toddobaadkan aynu ku jirno haddaba waxaynu u rajaynaynaa lamaanahan inay nolosha isku dhameystaan guurkooduna noqdo mid waara oo badhaadha